وهجاج dhegeystayaal imikana u diyaar garooba barnaamijkeennii sanadka cusub ee 2019 goordhowna waxaa inoo soo galaya fanaan maanta barnaamijka inoogu ah marti waa kuwa waa Axmed Saki halkani waa London وهجاج dhegeystayaal sidii aan idin sheegay fanaanka da'da yar boqorka codka ee imika laga daba dhacay Axmed Saki ayaa maanta studio-ga inoogu marti ah Axmed Saki horta marka hore aad baa lagu sugayay London Ingiriiska ku soo dhawow London ku soo dhawow BBC-da iska war saaxiib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو waxaan leeyahay happy new year walaal Cabdi Xaafid dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida kaga nool yihiin London baan maanta joogaa aad baan ugu faraxsanahay inaan BBC-da imaado laakiin London waad ka tagtay Saki waa imada ma lagu sugayay waan markii ugu horeysay imid ba UK waa hagaag markii ugu horeysay inaad BBC-da markii ugu horeysay ma sha Allah farxad waa hagaag heesaha waa badan yihiin heesaha waliba imika YouTube ka dad Axmed ku dhafatay Saki baa soo raacay soo boodaya xagga sare ay kaga jiraan badankooda dadka in dhageysanayay oo ku sugayay heestibaad sacayeen u soo qabano waxaan soo qaban lahaa hees aad u jecel yihiin oo la yiraahdo ikolkoliso ama korkaadii saaran tahay si fiican waa heestii iyo Axmed Saki garida igu kaabane kalsoonida idhistay ahayo korkadii saarantahay 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 وهجاج أذان كونك كوتشالها كرامان كوهيا كركا هستا يا سمي هستا واحد سمي أبوان أولالك يقول قالي ونادو تشالها وعبد الله حسن كني وأبوان دلي بركة عبد الله بيسمي يا لحنك يا اسكت بريد لحنك وحلا هاويلان صاحبنا هاي والله يرادو النبيل يسوقنا لحميستا وفي لاندين
oon halkan aad uga salaamaya nabil yar si fiican baan Ah. ku haya ma sha wala Allah iskugu tegey wala isugu tagay cid uma kala hadhin asxaabta Facebook ayaa iyaguna si toos ah imika Axmed Saki halkan ka soo hadasa qaarkood waxay leeyihiin Axmed Saki imaaraadkii ka soo qorayaan waa ku sugaynaa goormadna soo socotaa Imaaraadka iyo- waynu iman doonaa insha Allah Absolutely. maxaa leedahay xasan mawliid ibnu si arag waxa uu leeyahay aadayaan idiin salaamaya liibaan cali khalaas oo isaguna jooga xamar muqdisho salaan aad iyo aad u qiimo badan ayuu leeyahay dhammaan shaqaalaha BBC-da iyo fanaanka Axmed Masha Saki Allah, iga gaarsii masha Allah, masha wuu ku maqlaya cabdirasaaq yare isaguna cadnaan yare oo isaguna Moscow ka soo hadlaya ayaa isaguna ka salaamaya cabdi geesi oo isagana ka soo hadlaya magaalada Boorame ayaa isaguna leh Masha Allah. dhammaantiin waan idin salaamaya Haye. looma kala hadhin Yaxye Khalid waxa uu joogaa Burco isaguna waxa Burco bariga dhaweed tagtay Soomaaliland maaskin waan tegey. waa tagtay miya Waan tegey. sababtaas reer Burco badani waliba burco hees qaaliyana noo qaaday waa hagaag dhowr dhalinyaro iyaguna Burco ka soo hadlay ayaa halkan ku qoran Masha Allah. magaalada lagu yidhaahdo Gaalkacyo asxaab ayaguna ka soo salaamaya Waay. Cabdiqaadir Sulub ayaa ka mid ah Si fiican. heesaha kale ee Axmedow aan inoo hayo waxaa ka mid ah heestan dhaqan Masai iyo jacaylkayga dheega dartagami waaye layla haddaad garabkayga layla gacanoyma weydo eega layla layla cidlaan go'doomaya layla cidlaan go'doomaya layla cidlaan go'doomaya layla cidlaan go'doomaya layla 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 guddoonka gacaylka u gaara gobaad tahay doorna gaashaantida joogta waxaad gabdhahoo dhan ku dhaaftay garaadka gobaad tahay doorna gaashaantida joogta Axmed Saki heesahaaga marka midhahooda la dhuuxo horta dad badan oo imika jacaylkii ka yara baqay jacayl baaba ku dhacaya Waay. iyo ammaantan hablaha iyo magaaladaas hadee hadallo kelmado culculus baa ku jira laakiin imika heestan imika Ah. dhowr af ayaad muddo inaad ku Absolutely, heysisay absolutely. bal hadda heestaas waxa ka midhaheeda iyo cidda ka dambeysay iyo sidee ku timi iyo afafkan aad ku heysiso absolutely horta af walboo la baran karaa waana lagu heesi karaa ifan fiican. adigoon aqoon u lahayn xitaa qoraal ahaan baad ku xafidi kartaa sax so xilliga weligay maan aqoonin nairobina last year markii ugu horreyseen tegay bay ahayd aad xafladda adiga iyo haaniga iyo xalimo gobaad Xalimo Gobaad si fiican valentine daygii last year bay ahayd marka waxaan ka fikiray inaan bal luqad kale aan wax ka dee ku heesi karo ama aan beat kala qaadan karno marka waa african beat heeskani yaa sameeyey hees heestan waxaa sameeyey asxaabta Nairobi baan malinaya asxaabta nairobi haye ah. marka midhahan af sawaaxiliga Ah. maxaa ka mid ah Soomaalida maxay ku noqonayaan Axmedow waa inta koorasku leeyahay Haye. oo af soomaaliya mabensi yako leyla Aha. yemenitaka nyara Aha. bakasilali tena kama utoni benda file mine kubenda ya salaam asxaabta BBC-da magaalada Nairobi Ah. iyo qaybta sawaaxiliga ah ee iminka London Ah. waynu dalcad sii marnaa way la yaabi doonaan kelmadaha Facebook haddii aan ku yaro noqdo Axmed Saki iyo asxaab badan oo tiradii bay dhaafeen ayaa ku salaamaya nuur dilaac cabdilaahi waxa uu joogaa magaalada Boorame waxaan halkan hambadida sanadka cusub buu yidhi aan dhammaan ehelkayga iyo asxaabtayda idinkana aad ayaan idin salaamaya buu yidhi Axmed Masha Allah, Saki aad baa ku salaamaya. I hope inaad noo timaado ayuu yidhi magaalada Boorame. la yidhaahdo Boorame Masha Allah. khadar nuur isaguna waxa uu joogaa hargeysa ayuu joogaa aad ayaan Axmed Saki ku salaamayaa buu yidhi adiga iyo dhammaan asxaabta muxiidiin beledka oo isaguna ka mid ah asxaabta Facebook boggeeda Facebook ku xidhan waan idin salaamayaa ayuu yidhi cabdixaafid iyo fanaankaba fanaan daayir inaad maanta noo keenteen oo shidan waa mahadsantihiin buu yidhi Thank you, thank you. sahra Happy New yar Year. waxay kasoo qortay magaalada Burco way ku salaamaysaa farax waxay kasoo qortay hargeysa iyaduna way ku salaamaysaa haddaan iminka kuwan tiriyo ka bixi mayno Absolutely. amaal guuleed ayaa iyaduna aad wada socotaan oo aan iminka arkayay meelahan ay maraysay amaal aad ayaan kuu salaamaynaa anigii Axmed Sakiba yaad jecesha adigu karta Axmed Saki yaa salaanta marka sanadkan cusub sanadka cusub horta ummadda soomaaliyeed baan gaar salaamaya ahaan guud reer London ahaan oo magaaladii iyo gaar ahaan Ingiriiska iyo waxaan salaamayaa madaxweynaha somalilan waxaan salaamayaa musabixi iyo marwadiisa waxaan salaamayaa madaxweynaha soomaaliya waxaan salaamayaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle marwadiisa khadraxayd shacabka soomaaliyeed oo dhan baan salaamayaa waxaan salaamayaa reer london iyo reer UK
oo si fiican isoo dhaweeyey barnaamijkayguna oo noqon doono tuurkayga mid soconaya UK oo dhan xalayna habeen hore aan ka raali gelinayo intii uu ka buuxsamay hoolkayga oo aad boqolaal kumaanka mu gaadhay banaanka taagnaa laakiin habeena kalaa jira 19 gabdhuhu gaar u yahay 12 Birmingham iyo Bristol iyo waan wareegaya laakiin sakii 19 gabdhaho kaliya marka loo haysto ragii qaar badan baa dambar la dilaacaye iyaga raggu habeen gooni ma leeyahay habeen gooni raggu ma wadaalka waa in la isku daweeyo amaal baan mahaynaya inay ka masuul tahay oo aanu haysanay hablaho kaliya waxa kala salaamaya hablaha reer UK oo aad iyo aad soo dhaweeyay wiilasha UK waxaan salaamaya walaashay Amaal iyo saaxiibkay Cabdiwali Asaasa oo ka dambeeyay inaan wadanka imaado iyagana aad baan u salaamay waxaan leeyahay happy new year dhammaan adigana happy new year baan ku leeyahay walaalo heesta dhaqan bal wax nooga sii sheeg dhadhan haye sida ubax dhalaalo dhimanay Hargeysa ka dhex baxay tog dheer baad dhaayahayga qaado kuma dhaafaya garo ya sameey midhaha aniga ada sameey laxankana aniga marka codku waa adiga laxanku waa adiga weliga yaalahay oo heesigu reesans ku dayo waayo waxa dhacda had iyo jeer markaad meel xaflad ka qabanayso waxa laga yaabaa inaad magaalo ku darto markaas qof walba koray alla aniga taydii baad ilowday marka shantii Soomaaliyeed isku oran jiray ay maraysaa haystan waa hagaag sida ubax dhalaalo deemanay Hargeysa ka dhex baxay tog dheer baa dhaayahayga qaado kuma dhaafay garo dhaayahayga qaado kuma dhaafay garo garawiyo dhulkeennii dhoobadii udgoonay ama biyadhaadhe dhugashadaad u roonto waan kugu dhawey garo dhugashadaad u roonto aan kala dhantaalay laba jacaylku iyo dhigay dhadigiyo labahanahay dhalilaga ilaasho an kala dhantaalayno an kala dhantaal kala dhantaalayno an kala dhantaalay an kala dhantaalayno an kala dhantaalay an kala dhantaalayno waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa toos la socotaan barnaamijkii aan ugu talagalnay sanadka cusub ee 2019 halkan waa BBC London waxaana barnaamijka inoogu ah marti Axmed Saki fanaanka da'da yar imika heesihiisa iyo codkiisa dee magaalaba ay isweydiinayso asxaab badan ayaa Facebooka fariimo noogu dhaafay waxa aan ka raali gelinayaa asxaabta qaarkood haddii aan ka gaari waayo balse haddii aan isku dayo inaan inta imika ugu horeysa Cabdi Geesi Cabdi Booramo jooga waxa uu yiri waxaan munaasabada sanadka cusub awgii halkan ka salaamaya buu dhamaan shaqaalaha BBC da gaar ahaan buu yiri shaqaalaha laanta af Soomaaliga iyo dhamaan cid kasta oo aanu bogan BBC da aanu asxaabta ku nahay waxaan salaamaya ayuu yiri Mawlid Xaj Cabdi waxaan salaamaya buu yiri Maxamed Maxamuud Cadde oo maanta barnaamijka iyagu qayb libaaxle ka ah si gaar ah waxaan u salaamaya buu yiri fanaanka Sooda Xuseen waxay joogtaa Gaalkacyo waxay tiri dhamaantiin waan idin salaamaya Axmed Sakina waan salaamaya waan ku sugaynaa bay tiri Puntland بإذن الله تعالى xilliga aad imanayso Natiib Jarane waxa uu isaguna joogaa degmada Gunagado ee gobolka Jarar waa deegaanka Soomaalida ee imika Ethiopia waxaan marka hore salaamayaa ayuu yiri daadiyaha barnaamijka waan ka qaaday waxaan salaamayaa marka xigta bulshada Soomaaliyeed fanaanka ayaan salaamayaa buu yiri Abwaan Axmed ciir jiid isaguna wuxuu yiri Soomaali meel kasto ay joogto ayaan salaamayaa marka Axmed way badan yihiin asxaabta aanan ka gaaraynin raalli ahaada salaanta Axmed Saki way ka gudoomay anaguna waan soo salaameynaa heestan horta Axmed Saki oo dhulka Soomaalida ilaahay siiyay waa dhulka ugu quruxda badan ugu udgoon marka aad eegto xagga buuraha badda iyo daaqa iyo dhirta kale arag heesuna waa kasoo baxaan way ku macaan dalkii baan imka ka yimid oo haye aniga dalkii laga karayabaniyo inaad ku noqoto inaan dalkii joogo baan doonayaa oo aad kaba soo bixin marka la leeyahay dhulka Soomaalida nimca fadhida wax badan baa ka jira wallahi nimcooyin baa fadhiya nimcooyin heestana adaa tan gobolada booqasho aad booqashada ku tagtay
heestii maseer way noo soo socotaa goordha waynu cayaaranaa laakiin axmed saki ahaan waxa aan doonaynaa ku weydiiyo asxaabta qaarna ay soo qorayaan fariin ah goormaad sakiyo horta inaad heesi karto oo codkana inuu maya markaad bilowday maaha bilowga waa laga horeeyaa moogtahay goortaad inuu cod kugu jiro uu soo baxay goormay ahayd wallaahi walaal cabdiyo waxa dhacday waxaan horta kugu abuuran yahay oo qofku isagoo had iyo jeer ku dhex jiro buu arkaa si fiican marka anigu koley waxaan garanayaa horta markii horena wadaad baan ahaan jiray haye wadaadnimadana waa looga dambayn doonaa looga dambayn doonaa insha allah marka waxaa igu horreysay koley 2008 marka heestii kugu horreysay qaada tabay ahayd waxay jamaad waa hagaag fanaaniinteennii hore fanaan buu ka dambeeya fanaan buu heesihiisa jecel yahay haddii lagu yidhaahdo axmed sakiyow markii aad daranaysay axmed saki ahaan ha ku dhalan oo fanaan kale ku dhalo keebaad noqon lahayd maxamed axmed kuluc allah yarxam araaximiin isaga iyo dhammaan fanaaniinta iyo muslimiinta meel kasta allah u naxariisto heestaa inagu soo maqanay waxaan masayr masayr waxaa le abwaan la yidhaahdo abshir oo degan maxaa la yidhahda waddanka denmark abshir qiso uun guud ahaan u dhacday uu ka sameeyey marka waa gabadhuu fahmi laayahay waxa ku dhacay way masayrtamiya masayr inuu ku dhacay inay macnihii jacaylkii ka batay in wuxuu ku soo garan waayay intii wuxuu ku sheegu garan waayay deetana midhahan uu markaa ku sheegay waa hagaag waa heesta masayr iyo axmed saki sidii mashqaciyo hadhuur miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay macaan waad iga heshee ma midigtaa ku daray urtii marmarinoga ibliisku muujiyo calaydhba muuq ka baxay inaasu waa maraane ma muraayadiba jabto oo martabaad xidhantahiyo muuqaagu baan arkaa inaasu waa maraane ma muraayadiba jabto oo martabaad xidhantahiyo muuqaagu baan arkaa inaasu waa maraane ma muraayadiba jabto martabaad xidhantahiyo muuqaagu baan arkaa hagaag meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal sanad wanaagsan axmed saki fanaanka da'da yar codka dahabiga ah sida ay asxaab badanna facebook ku soo qorayso ayaa maanta barnaamijka inoogu ah asxaabta facebooka axmed sakiyow waa fariimihii waa soo bateen hadhowta yaan layna odhan de waad iga tagtay bar inta aynu awoodno xariir maxamed cali hargeysa ayuu joogaa ugu horeyn waan salaamayaa buu yidhi adiga iyo daadiyaha adiga iyo fanaanka dhammaan asxaabteed ayaa salaamayaa buu yidhi meel kastoo ay joogto cadnaan maxamed
maxamed axmed isna wuxuu joogaa magaalada boosaaso waan idin salaamayaa ayuu yidhi gacaliyayaal adiga iyo axmed saki waa fanaan ugu qaaliya buu yidhi weli waa kaa sugaynaa buu yidhi puntland ilaa inaad noo timaado khadar yare isaguna hargeysa ayuu ka soo qoray aad ayaan idin salaamaya ayuu yidhi isaguna asxaabta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka joogto iid qaasim burco ayuu isaguna kasoo qoray waxaan salaamayaa buu yidhi bahda b b c da gaar ahaanna buu yidhi asxaabtayda laanta af soomaaliga axmed saki baan salaamayaa buu yidhi iyo cid kasta oo magacayga iyo muuqayga taqaana khadar cabdi dayr hargeysa ayuu isaguna kasoo qoray axmed saki aad ayaan kuu salaamayaa buu yidhi inagoo hargeysa isku aragnay buu ku yidhi saaxiib waan ku salaamayaa farxaan bashiir cali isaguna muqdisho ayuu joogaa meel kasta oo ay dadka soomaaliyeed joogaan waan salaamayaa buu yidhi fanaankana waan salaamayaa xaawakiin waan soo sheegay xasan yarana waan soo sheegay marka waynu ku noqon doonaa intii aynu ka gaadhno axmed saki marka waxaad tiri waxaan noqon lahaa haddii mar kale aan dharan lahaa maxamed axmed kulu allah yarxam raxmin heesiisa maxaad ka xasuutaa tibaad ugu jecleed sakiyow diga habeenkii markuu waagu daalaco iyadoo ogsoonto dayaxa oo barhka la maqan dabubta ugu yeedha haddii iminka aanan axmed saki oo dhan lamaba garteenba dadka qaar ba ku marib lahaa hablaha fanaaninta ah kuwii hore iyo kuwa dambe iyaga bal iga waran maasha allah horta ma dookhayga macnihii dookhaaga dabcan hablaha fanaaninta horta waa beri maasha allah aad baan u jeclaa dhammaan intii dhimatay allah u naxariisto waxaan ugu jeclaa saare axmed jaamac xaliimo khaliif magool waa hablihii codka dahabiga lahaa khadra daahir ma tirin karo aamine cabdilaahi dhalinyaro ayaa soo baxda iminka axmed saki oo iminka dee dhalinyaradiina oo iyaga laftoodu mararka qaarkooda solosatolo ma fanaaniintii horaa heeseysa hargeysa markaad tagtay xidigaha geeska si fiican ayaad u wada baashaasheen heese badanna waa wada qaadaan qaar waa soo socdaan waxaa jirta hees aad gabdhahun ugu talagashay inkastoo laysku haysto habeenkaa gabdhaha oo keliya oo dacwaddu ay amaalay badan tahay oo laleeyahay maxay ku dhacday annaga wuxuu malahay amaal baa hoosta ka qaboqaabisay inuu hablaho keliya habeen laakiin waa hablaheenu inay habeen xaq bay u leeyihiin iyo laba iyo saddexba waa lafdhabarteennii heesta iyada maxaa daheed ka mid ah waxaa ka mid ah waxaa sameeyey cabdilaahi xasan ganay waxaa ka mid ah bu'da nuurka aragaay buddhigii aqoontaay afka barashadiisaay halka lagu dhex beermaay halka laga bilaabmaay halka lagu barbaaraay bilis xaawaleeyey inkastoo laboodbu ama boqorra sheegtaan ma badan xaqiino si kastoy u baanaan barta aad ku filantihiin raggu buuxin kari waa shaki kuma jiro amaal soo dhowow hadalladaas yacnihii way ku dhaqaajinayaanba runtiina dee gabdhaha soomaaliyeed gabdhaheenna waa hooyooyin waa dumarkeennii waa walaaladeen waa lafdhabarteennii heesaha iyo gabayada hadraawi oo kale axmed saki dad xasuustay hadalladu lamama dhergin kara baa lagu qabaa yacnihii ammaan si kasta haddii loogu jeediyo ma inaf maa kuma fila marka heestaas hablahaas habeenkayaad ku furaysaa way tuman tahay insha allah laxankeedii waxeedii oo dhan waa dhammaystiran muusigeedii axmed weli baa tumay hablaha reer ladhar ma nasibu leh ayaa iyaga ayaa yani si habeenka markii koowaad u yeeshay sanadka 2012 dumarka reer London amaal adigu kusoo dhawarta b b c da inan baa tahay adiga laftaadu bulshada soomaalida gaar ahaan ingiriiska aad looga yaqaano weliba waxa aad aada ugu fiican tahay inaad asxaab badan oo dee fanaaniintii iyo dadka martida ah ee inoo yimaadeen aad aada u soo dhaweyso waana dee dhaqankeedii waa hablahaasunu iminka xabis sheegaya wanaageedii ayuunbaad ku jirtaa mahadsantahay walaal waan dhawahay aad baan kuu salaamaya iyo asxaabta kaleba iyo walaalkii axmed sadikiba yaad kala salaamaysaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida meel kasta ay joogaan adduunka waxaan salaamayaa dadka intay taqaana magacayga iyo muuqaygaba waxaan leeyahay dhammaantiin sanad wanaagsan ilaahay sanadkan sanadkiisa haynagu gaadhsiiyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo mid kheyr qabana haynooga dhigo dhammaan soomaalideena meel kasta in wada joogna aamiin heesta ku xigta inkastoo heestii kolkoliyay dad badan ay halkan kasoo dalbanayaan asxaabta xagga aan weydiiyo ma heestii kolkoli baynu ugu celinaa mise hees kale
وهجاك هذا ميوزك إنه سلقي سنة وهاجا دغستيال halkaasi ayaa barnaamijkeenu inooga soo socon doonaa heestuna halkaasi hayay inooga soo socon doontaa dhamaantayo Mawlid Xaaji Cabdi Maxamed Maxamuud Cadde anigu Cabdi Xaafid Axmed Saki fanaanka iyo Amaal Guuleed iyaguna marti noogu ahaa waa inoo yaacaw sagaalka fiidnimo asxaabtaan ka ilaa wax hayad aragsan iyo salaantiinana waa la idinka gudoomay Dantay